Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ku soo dhawaada barnaamijka wararka maanta qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in markabka diyaaradaha dagaalka xambaaraha ee USS Theodore Roosevelt oo ay galbinayaan raxan maraakiibta dagaalka loo dirayo bariga dhexe xilli xiisad colaadeed oo gobolka ah ay cirka ku shareeran tahay. Gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo si cad u sheegay in dalkiisu uu ku jiro dagaal dhaqaale. Pakistan oo si aan laga filanaynin ugu gacan saartay cunaqabateynta Mareykanku ku soo rogay Iiraan iyada oo sheegtay in aysan u hoggaansami doonin. Agaasimaha xakamaynta nukleerka ee IAEA oo sheegay in aysan hayn caddayn adag oo muujinaysa in Iiraan dib u bilaabayso xarumaheeda nukleerka. Ugu yaraan 12 qof oo ku dhintay dab ka kacay kaymaha dalka Algeria xilli uu ku sii fidayo deegaano la degan yahay. Ciidamada badda Yemen oo sheegay in ay qabteen doonsiday agab ciidan oo loo waday Xuutiyiinta. Ciidamada Israa'iil oo weeraro ka wada koonfurta dalka Lebanon kadib markii Xisbullah ay diyaarado drones ay ku weerartay ciidamada duulaanka. Xubinta falanqaynta ee barnaamijka waxaan idinkuga haynaa hogaamiyaha cusub ee Iiraan miyuu geeriyooday mise wuu nool yahay oo sababaha loo weysan yahay waxa ugu wacan xaalado ammaan iyo taxadar. Dhammaan qodobadan iyo warar kale oo faahfaahsan iyo wixii degdeg ah ee nagu soo kordha ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta. Soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. Haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horay ugu xirnayn ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Maanta waxaynu ku bilaabaynaa dalka Algeria halkaasi oo ay ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen dab xooggan oo ka kacay kaymo ku yaala bariga dalkaasi iyada oo dabku ku sii siqayo deegaano ay dad ay ku nool yihiin sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalka Algeria Said Siyud. Warbaahinta maxalliga ah ayaa waxay sheegtay in 5 qof ay ku dhinteen gobolka Jejel, 4 qof oo kalena ah Bija, halka 3 kalena ay ku dhinteen Tizi Ouzou. Hay'adda gurmadka degdega ee Algeria ayaa sheegtay in guud ahaan la diiwaan geliyay 159 dab oo ka kacay dhir iyo kaymo ku yaala 16 gobol. Ilaa hadda 9 dab ayaa la damiyay halka dadaalada lagu xakameynayo 69 kale ay weli socdaan. Maamulka ayaa wuxuu bilaabay daadguraynta ka hortagga ah ee lagu sameynayo deegaano dhowr ah gaar ahaan Jejel iyo Al Taraf kadib markii dabku ku sii dhawaaday guryaha dadku ay degan yihiin. Diyaarado iyo kooxo dhulka ka howlgala ayaa loo adeegsaday daminta dabka iyo sidoo kale ilaalinta dadka. Dabka ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli Algeria ay wajahayso kuleyl daran iyada oo heerkulku meelaha qaar laga filayo in uu gaaro 49 darajada Celsiuska. Algeria ayaa sanad kasta waxay la kulantaa dab kaymaha ah balse abaarta soo noqnoqotay iyo sidoo kale kuleylka daran ee la xiriira isbedelada cimilada ayaa sii kordhayay xaaladda khatarta ah. Tan iyo 1 bishii May ilaa 20 Julaayo ee sanadkan dalka waxaa laga diiwaan geliyay ku dhawaad 4,000 oo dab taasi oo aad uga badan tiradii la diiwaan geliyay isla muddadaasi sanadkii hore 2025. Wahagaag bal markaana dhanka Yemen haddaynu eegno ciidamada badda ee dowladda Yemen ayaa sheegay in ay badda cas ay ku qabteen doonsiday qalab loo isticmaalo samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska kaasi oo la sheegay in loo waday dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta. Doonta ayaa waxaa lagu qabtay meel ka baxsan xeebaha magaalada Al-Maqa ee fiidnimadii xalay. Ciidamada Yemen waxay sheegeen in qalabka ay si qarsoodi ah ay ugu soo direen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan dhanka Yemen iyada oo loo waday Xuutiyiinta sida ay baahisay wakaaladda wararka Saba ee fadhigeedu yahay Cadan. Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay Xuutiyiinta iyo Iiraan. Warbaahinta militariga ee taageerta dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada badda ay rasaas ku fureen 5 doon oo ay leeyihiin Xuutiyiinta kuwaasi oo ku soo dhawaaday jasiirado ku teedsan marin biyoodka caalamiga. Doomahan ayaa waxaa lagu qasbay in ay dhanka waqooyiga ay ugu laabtaan Xudayda iyadoo sidoo kalena la sheegay in ciidamadu ay soo rideen diyaarad drones ah oo sahan waday. biyaha Al-Maqa waxay noqdeen goob ay ku sii xoogeysanayaan iska horimaadada u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay. Bal markaana aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta.
militariga Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay laba diyaaradood oo drones oo qaraxyo siday ay ku weerartay ciidamo Israa'iil ah oo ka howlgalayay deegaanka Cali Daajir oo koonfurta dalka Lubnaan. ciidamada Israa'iil ayaa ku andacooday inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha halka xiriirkii laga waayay tan labaad. Waxa dhaawac ah kama aysan soo garin askarta sida militarigu uu sheegay daroonka. dhinaca kale ciidamada cirka Israa'iil ayaa dhankooda weeraro ka fuliyay goobaha ku yaala koonfurta Lubnaan. xagga musiibada ka dhacday dalka Nepal mas'uuliyiinta dalka Nepal ayaa sheegay in 468 dalxiisayaal oo ay ku jireen 393 ajaanib aan weli lahayn raq iyo ruux 24 saacadood kadib daadad xooggan oo ku dhuftay gobolka xadka Nepal iyo Tibet. afhayeenka waaxda dalxiiska Nepal Suraj Gamer ayaa waxa uu wakaalada wararka AFP u sheegay in dadka la la'yahay ay ku jiraan 75 muwaadin oo Nepal ah. ugu yaraan 165 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadadka ka dhacay Nepal iyo Shiinaha. dhanka Shiinahana 558 qof oo kale ayaa waxa lagu soo waramayaa in weli la la'yahay. hay'adaha gurmadka wada ayaa wadaan dadaal lagu raadinayo dadka maqan iyadoo oo musiibadu ay saameyn weyn ay ku yeelatay deegaanada xuduudda. waa tahay daawadayaal markaan intaan u gudbin qodobada kale bal markaan aynu ku hakano qadar xaysiisa waxaan ku eegi doonaa qaybta dambe oo inagu soo foolay wararkii ugu dambeeyay xiisada colaadeed ee Iran iyo Mareykanka u dhaxaysa iyo wararka xaaladda bariga dhexe. dugsiga casriga ah ee Daarul Hijra Islamic Online waxa uu kugu bishaaranayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto Quraanka Kariimka, higaada iyo culumta shareecada, kama marna luqadda Carabiga iyo tarbiyadda awlaadda. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS. eBesa goob kasta iyo goor kasta. soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaheena labaad. barnaamijyadeena iyo wararkeena waxaad ka heli kartaan baraheena bulshada sida Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram. sidoo kale warbixino qoraal ah warar iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aan ku leenahay ee hbonlinetv.com. imankana xiisada colaadeed ee Iran iyo Mareykanka xaggeeda hadaynu eegno iyadoo oo ay socdaan dadaalo dhanka diblomaasiyadda ah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar waxa ay sheegtay in ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mohammed bin Abdulrahman Al Thani uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi kala hadlay dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xiisada iyo sidii loo abuuri lahaa xaalada suurtagelinaya wada hadal. kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday wada hadallada ku saabsan qaab dhismeed meel gaar ah oo lagu soo jeediyay kaasi oo lagu dhisayo marin ay maraan maraakiibta oo isku si ku meel gaar ah loogu sameynayo marinka Gaza marinka Hormuz. ra'iisul wasaaraha Qatar oo maanta tagay Tehran ayaa adkeeyay baahida loo qabo in la ixtiraamo madax-bannaanida dalalka dariska ah iyo xorriyadda isku socodka maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa dhankiisa Qatar uga mahad celiyay dadaalada joogtada ah ee ay ugu jirto dejinta xiisada iyo taageeridda wada hadallada. isla wararka Iran ee gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Iran Mohammed Bakhar Khalibaf ayaa sheegay in dalkiisu ku jiro dagaal dhaqaale oo buuxa isaga oo intaasi ku daray in Iran ay cadowga kaga adkaan doonto goobtan sidoo kale sida ay sheegtay wakaalada wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA. war kale oo la xiriira xiisadahan Pakistan ayaa ganafka ku dhufatay cunaqabataynta Mareykanka uu saaray Iran arrin ugub ku ah Washington. Pakistan waxay sheegtay inaysan isku arkin in ay ku qasban tahay in ay dhaqan geliso cunaqabataynta Mareykanka uu ku soo rogay Iran. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan Dahir Andrabi oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada Islamabad ayaa waxa uu sheegay in Pakistan aysan aaminsanayn cunaqabatayn hal dhinac ah oo Washington ku soo rogtay Tehran
ay waafaqsan tahay sharciga caalamiga isagoo intaasi ku daray in arrimaha jira lagu xalinayo wada hadal isniintii xogayaha maaliyadda Mareykanka Scott Bessent ayaa waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo xiriir ah oo lagu soo rogay Iran iyadoo maamulka Trump uu doonayo inuu kordhiyo cadaadiska dhaqaale ee Tehran si loogu qasbo inay sameyso tanaasulaad dheeraad ah war kale oo arrimaha la xiriirana madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA Rafael Grossi ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cadeymo adag oo muujinaya in Iran ay dib u dhisayso xarumaheeda nuclearka kadib weeraradii Mareykanka iyo Israel waraysi uu bixiyay Grossi ayaa wuxuu ku sheegay in wada hadallada ku saabsan barnaamijka nuclearka Tehran ay weli hakad ku jiraan dagaalka socda awgiisa waxa uu intaas ku daray in qiyaastii 440 kilogram oo uranium ah oo si heer sare ah loo kobciyay ay Iran leedahay welina ay taalo halka ay ku sugneed xilligii dagaalka 12 maalmood socday ee dagaalkii sanadkii hore dhacay 2025 dhanka Mareykankana macadka ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in markabka diyaaradaha xambaara ee US Theodore Roosevelt in markabkaasi uu isku diyaarinayo howlgal loogu dirayo bariga dhexe kaasi oo socon doona in ka badan 7 bilood xilli dagaalka Mareykanka ee Iran uu sii socdo taliyaha howlgallada ciidamada badda Admiral Daryl Cordell iyo sargaal sare oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka John Payman ayaa wariyaasha u sheegay in Theodore Roosevelt iyo maraakiib galbinaysa iyo diyaarado dagaal loo qorsheeyay in ay bedelaan markabka US George W. Bush ee fadhigiisu yahay Japan US George W. Bush ayaa toddobaadkii hore galay aagga bariga dhexe ee ay ka howlgalaan ciidamada badda Mareykanka ee taliska shanaad waa hagaag daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubinta falanqaynta oon alaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan qobarada arrimaha dagaalka militariga ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo weliba sirdoonka sidoo kale xubintani waxaynu ku soo qaadanaa arrimaha waaweyn ee warbaahinta caalamku ay wax ka qorto ama ay baahiso xubintan waxaan maanta ku soo qaadanaynaa hubanti la'aan iyo jahawarar siyaasadeed ayaa ka jira Iran iyadoo ay sii kordhayaan shakiga iyo wararka ku saabsan xaaladda hogaamiyaha sare ee cusub Mujtaba Khamenei maqnaanshihiisa fagaarayaasha iyo xafiiskiisa oo joojiyay soo saarista bayaanada rasmiga ah ayaa dhaliyay warar dheeraad ah oo sheegaya in uu dhintay ama xaalad caafimaad oo adag oo daran uu ku jiro sida ay daabacday majalada Mareykanka ee The Atlantic haddaba Mujtaba ma dhintay mise weli waa nool yahay warbixin arrimahan ku aadan waxaa soo jeedinaysa waryaheena Ibn Cabdikariin Timacade warbixintu waxay sheegaysaa in shakigu uu sii kordhay kadib markii Mujtaba uu ka maqnaa munaasabadii xuska aabihii hogaamiyihii hore ee sare Ali Khamenei munaasabadaasi waxaa ka qayb galay kumanaan Iiraaniyiin ah mas'uuliyiin sare oo siyaasadeed iyo qaar ka mid ah wiilasha kale ee Khamenei balse Mujtaba laguma arag meeshaasi tan iyo markii uu xilka hogaamiyaha sare qabtay qiyaastii 6 bilood ka hor lama soo bandhigin sawir cod amaba muuqaal cusub oo Mujtaba ah mas'uuliyiin sare oo dawladda Iiraan ka tirsan ayaa sidoo kale sheegay inaysan la kulmin waxaana ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi oo xubin ka ah golaha amniga qaranka Maxamed Xuseen Qoshwaat oo ah mas'uul hore isla markaana qaraabo la ah Mujtaba ayaa sheegay in wax ka yar 5 qof ay la kulmeen hogaamiyaha sare tan iyo markii xilka uu qabtay waxaana arrintaasi uu ku sababeeyay taxadar amni warbaahinta Iran Wire ayaa sidoo kale sheegtay in xubnaha dawladdu aysan la kulmin Mujtaba tan iyo markii loo magacaabay xilka hogaamiyaha sare warbixintu waxay tilmaamaysaa in maqnaashiyaha Mujtaba dhinaca amniga laga fahmi karo maadaama laga cabsi qabo in bartilmaameed uu noqdo weerar Israa'iil ama Mareykanku ay fuliyaan oo lamid ah kii lagu dilay aabihii macluumaadka kale ayaa sheegaya in uu ku dhaawacmay weerar lagu qaaday qoyskiisa bishii Febraayo dhaawaciisana laga yaabo inuu ka hor istaagay inuu fagaarayaasha ka soo muuqdo amaba khudbado uu jeediyo si kastaba ha ahaatee maqnaashiyaha daba dheeraaday iyo xogta xafiiskiisa ka soo baxaysa oo yaraatay ayaa sii xoojiyay wararka ku saabsan caafimaadkiisa shakiga laga qabo warbixinta majalada The Atlantic waxa ay soo xigatay shaqaale ka tirsan hay'ad dawladeed oo Tehran ku taala kaasi oo rumaysan in Mujtaba ama uu dhintay ama uu galay xaalad dhimasho maskaxeed ah laba mas'uul oo kale ayaa la sheegay inay qabaan aragti la mid ah taasi laba ilo wareed oo dawladeed ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in wararka ku saabsan Mujtaba xaaladiisa caafimaad oo si xumaanaysa ay gaareen heerarka ugu sareeya ee nidaamka
qiyaastii 2 toddobaad ka hor fariin lagu faafiyay barnaamij maxalli ah ayaa Iiraaniyiinta looga codsaday inay u duceeyaan Mujtaba isla markaana ay u qalaan iyadoo lagu sheegay in noloshiisu ay khatar ku jirto balse warkan si rasmi ah looma shaacin loomana xaqiijin. dadka ku dhow Mujtaba ayaa si ku adkeysanaya dhinacooda inuu nool yahay. Khashwad waxa uu wararka geerida Mujtaba Qabani ku tilmaamay qayb ka mid ah dagaal maskaxeed oo lagu doonayo in lagu niyajibiyo dowladda iyo shacabka Iiraan laguna cadaadiyo inay u hoggaansamaan cadaadiska Mareykanka. Cabdulrazaaq Davari oo hore u ahaa la taliyay ama uga ahaa la taliyay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isaguna sheegay in Mujtaba uu caafimaad qabo isla markaana dhawaan uu soo muuqan doono. difaacayaasha Mujtaba waxay sidoo kale daliil uga dhigayaan in xafiiskiisu 27kii bishii hore ee Julaay uu soo saaray fadwooyin diimeed halka 9kii Agostna lagu dhawaaqay inuu la kulmay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian. madaxweynaha ayaa sheegay in uu kulan socday 7 saacadood la qaatay Mujtaba iyagoo ka wada hadlay dagaalka iyo xaaladda dhaqaale. isla maalintaasi waxaa sidoo kale la soo saaray amro lagu magacaabay jeneraalo dhowr ah oo loo dhiibay xilal sare oo military hay'adda xafiiska hogaamiyaha sare ayaa tan iyo maalintaasi aamusnaa taasi oo mar kale sare u qaaday shakiga ku saabsan xaaladiisa caafimaad. warbixintu waxay sheegaysaa in arrintu aysan ku koobnayn oo kaliya su'aasha ah in Mujtaba uu nool yahay iyo in kale maqnaashihiisu waxa uu saameyn toos ah ku leeyahay habka go'aan qaadashada Iiraan maadaama hogaamiyaha sare uu haysto awood ballaaran oo dastuuri ah isla markaana uu yahay qofka ugu dambeeya ee kala saara khilaafaadka hay'adaha dowladda iyo garabyada siyaasadeed ee dalka. inta uu maqan yahay golaha amniga qaranka oo ka kooban 13 xubnood ayaa si wadajir ah u maamulaya arrimaha muhiimka ah ee dalka. golaha waxaa ku jira madaxweyne Pezeshkian, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaaf iyo taliyayaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan kuwaasi oo ku kala aragti duwan dagaalka iyo wada xaajoodada sida hadalka loo dhigay. khilaafaadka gudaha ayaa sidoo kale sii xoogeysanaya gaar ahaan isafgaradkii Tehran iyo Washington ay ku gaareen Islamabad bishii Juun. inkastoo Mujtaba uu fariin ku taageeray heshiiska haddana waxa uu tilmaamay in uu mabda ahaan kasoo horjeedo. majalada The Atlantic waxay kusoo gabagabaysay warbixinteedu in Iiraan ay wajahayso doorashooyin masiiriya oo u dhexeeya diblomaasiyadda iyo iska horimaadka. inkastoo dastuurku uu cadeynayo cidda go'aamisa jihada dalka balse maqnaashiyaha hogaamiyaha sare ayaa adkeynaysa in la ogaado in awood uu leeyahay inuu xilkiisa gudanayo iyo cidda dhab ahaan gaaraysa go'aanada ugu waaweyn ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Nimcati Macade, HBO Online TV. وهجاك دعوة ديال نمع وما سنتهاي انت سيان كسو جبجبيننا برنامجكي ورركا مانتي أو هل كان أنا ذيك السعود سيني أنا جو محمد عبد الرحمن ورركني برنامج دينا واحد كل كرتن بجوجنا كلا دوان بالشدة فيسبوك يوتيوب تويتر ولا بالتليجرام وينو كلن تنبينا بتكليو كسو دو قاري أونلاين qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah oo ardaygu uu ku qanacayo waalidkana u qafiif ah qof kastaana ducdiisa uu duruusta ka qaato waalidiin badan oo ku nool dibaddu waxa ay raadinayaan dugsi quraan oo online ah oo dhammaystiran kaasoo si buuxda u bedeli kara dugsiyada tooska ah isla markaana bixiya dhammaan adeegyada waxbarasho iyadoo loo marayo casharro toos ah lana baranayo quraanka maadooyinka asaasiyaadka diinta iyo higaada qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay waxbarayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo loo adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka iyadoo sidoo kalena la sameeyo la socod joogta oo waalidiinta waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah oo loogu talagalay waalidiinta si ay ula socdaan horumarka carruurtooda haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online